warar laga helayo ila amni oo Israa'iiliin ah ayaa waxay sheegayaan in Israa'iil ay walaac ka muujisay suurtagalnimada in askarteeda lagu qafaasho deegaanka Kafir Tabnit ee koonfurta Lubnaan iyadoo cabsidan ay ka muuqato in la adeegsanayo sidii markaasi qorshayaal ay u fulin lahaayeen dagaalamayaasha Xisbullah kuwaasi oo doonaya in ciidankan ay qabsadaan inay ku bedeshaan dagaalamayaal ka tirsan Xisbullah oo ku go'doonsan godad iyo marino dhulka hoostooda mara sida ay sheegtay xogtani amniga ciidamada Israa'iil ayaa waxaa la siiyey tilmaamo cusub oo dhinaca ammaanka kuwaasi oo ku amraya inay ku dhaqaaqaan kooxa ka kooban 2 ilaa 3 askari si loo yareeyo qatarta afduub ama weerar lama filaan ah waraacan ayaa imaanaya xilli xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Xisbullah ay wali cirka ku laran tahay iyadoo labada dhinacna isweydaarsanayaan weeraro iyo dhaqaaqyo military ila warajada waxay sheegeen in hay'adaha ammaanka Israa'iil ay si dhow ula socdaan xaaladda deegaanka Kafir Tabnit iyo deegaanada ku dhow iyadoo cabsidan ay ku aadan tahay in askar Israa'iiliin ah la qafaasho